السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وناكسن خيارتنا داوانيسا idilkiin baa meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada mar kale iyo mid ka mid ah barnaamijyada aan idinkugu talagalnay maanta oo axada taariikhduna ay tahay 4 bisha Febraayo sanadka 2024. barnaamijkan waa kii ugu horeeyay barnaamijyada aynu maanta idiin soo gudbin doono haddii Allah awoodii ka raali noqdo. dhowr qodob oo muhiim ah ayaynu barnaamijkeena ku falanqayn doonaa. weerar culus oo lagu qaaday xuutiyiinta oo wacad ku maray inay aargoosan doonaan sidoo kalena ay halkeeda ka sii wadi doonaan sida ay u difaacayaan shacabka Falastiin oo ay u hortaagan yihiin dekadaha Israa'iil oo ay u go'doomiyeen inay meeshooda ka sii wadi doonaan. haddaba maxaa dhacay sidee wax u jiraan? Mareykanka oo sheegay in weerarada ay ku qaadeen Yemen xalay inay ahaayeen kuwa ka culus kuwii oo ay horay ugu qaadi jireen. haddaba tafaasiil ku saabsan weerarkaasi iyo sida ay wax u dhaceen ayaan barnaamijka idinkugu faahfaahin doonaa. waxaa sidoo kale aan barnaamijka idinkugu hayaa qodob aad muhiim u ah oo ka hadlaya dagaalka Israa'iil ay ka wado Gaza. taliyihii hore ee hay-adda sirdoonka dibadda Israa'iil ee Mossad ayaa ka hadlay arrin mar kale dhabar jabinaysa siyaasadda Netanyahu. runta ayuu u sheegay. wuxuu yidhi sheekadan way adag tahay, Israa'iilna inay soo laabato waxay qaadanaysaa muddo 5 sano ah. haddaba waraysi uu bixiyey isagoo ka hadlaya dagaalka ayaanu barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa, inagoo horey idinkugu soo gudbinay midka taliye ka ahaan jiray sirdoonka gudaha Israa'iil ayaa isaguna maalin dhexdaasa aan idiin soo gudbinay. marka kan waa kii dibadda. haddaba waxaa sidoo kale aan barnaamijka idinkugu hayaa sheeko cajiiba oo ku saabsan Mareykanka oo la sheegayo inay heleen xogo ku saabsan cabsida inay sii kordhayso ku saabsan in Mareykanka weeraro dibadda ay uga yimaadaan doorashada 2024 ee dhici doonta dabayaaqada sanadkan. waa doorashada madaxweynaha Mareykanka iyo sidoo kale gudaha oo dhibaatooyin iyana ay ka dhici doonaan. xaaladda Mareykanka ayaa waxaa leeyahay laga yaabaa inuu khatar galo doorashadaas. haddaba maxay Mareykanku ka baqayaan? yaase dibadda ka soo weeraraya oo ay ka cabsanayaan? warbixino laga qoray ayaan barnaamijka idinkugu hayaa. sidoo kale waxaan idiin hayaa mudaharaadyo ka dhacay meelo kala duwan oo ka tirsan Yurub shalay iyo maantay oo markaa gelgelay mar kale dowladaha halkaa ka dhisan iyagoo ku baaqaya inay dowladahooda joojiyaan taageerada Israa'iil ay u hayaan, isla markaana dagaalka laga joojiyo shacabka Falastiin gaar ahaan dadka reer Gaza. haddaba qodobadaasi iyo kuwo kale iyo wixii soo kordha inta aan barnaamijka ku guda jirno ayaanu barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa. Safari Remit waxay ka caawinaysaa inaad reerkaaga iyo saaxiibada ku nool dalal dhowr ah aad gaarsiisid wixii aad ugu tala gashay. ilaa iminka wadamada ay xawaalada kugu diri karto waxaa ka mid ah Kenya, Soomaaliya, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo Turki. qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaalada. xawaaladan waa online. kulan wanaagsan khiyaarta na daawanaysa meel kastoo aad joogtaan. waa maalinimo axada. barnaamijkanna waa kii ugu horeeyay. qodobo muhiim ah ayaa noo soo socda, balse markan waxaan ku bilaabaynaa. Mareykanku waxa uu sheegay weeraro culus inay ku qaadeen fariisimo kala duwan oo meelo kala duwan oo Yemen ka tirsan dhulka ay xuutiyiinta maamulaan ah. Mareykanku waxay leeyihiin meelaha aanu weerarnay waxaa ka mid ahaa goobo ay yaalaan gantaalo diyaarsan oo macnaha in la rido kaliya ay dhiman tahay oo xuutiyiintu ay leeyihiin. waxaa soo kale weerarnay goobo ay yaaleen diyaarado diyaarsan oo drone ah oo iyaguna howlgal diyaar u ahaa. marka meelahaas kala duwan ayaynu weerarnay. waxayna sheegeen Mareykanka iyo Ingiriisku weerarkii xalay inuu aad uga cuslaa weeraradii maalmihii la soo dhaafay ay ku qaadayeen xuutiyiinta ayaa iyaguna jawaab ka bixiyay weerarkaas. haddaba wararkii ugu dambeeyay ee laga qoray xalay wixii dhacay ayaan barnaamijka ku bilaabaynaa. Mareykanka iyo Ingiriiska waxa ay fuliyeen 48 weerar oo ay ku qaadeen dhinaca waqooyi waddanka Yemen, halka dhanka kale xuutiyiintuna ay wacad ku mareen inay sii wadi doonaan taageerada ay siinayaan shacabka Gaza oo iyagu ay markaa u haystaan waxa loo soo weerarayo inay tahay taageerada ay u filinayaan walaalahooda reer Gaza
markii ay israa'iil maraakiibteeda mamnuuceen dekadaheedana ay go'doomiyeen afhayeenka militariga kooxda jamaacada ansaarullaahi xuutiyiinta ninka la yidhaahdo korneel yaxya sariic ayaa waxa uu sheegay in diyaaradaha maraykanka iyo kuwa ingiriisku ay 48 weerar oo dhinaca cirka ay ku qaadeen gobollo ka tirsan waddanka yemen laakiin waxa uu sheegay in weeraradaasi aanay hor joogsan doonin taageerada ay siinayaan shacabka walaalahooda ee reer Falastiin gaar ahaan kuwa ku dhaqan marinka Gaza wuxuuna sheegay in jawaabta ay bixinayaan ay mar walba diyaar tahay oo ay ka jawaabi doonaan korneel yaxya sariic waxa uu sheegay maanta oo axad ahayd aroortii hore ayuu sheegay weeraro dhinaca cirka inay soo qaadeen cadawtinimo maraykanka iyo ingiriiska iyagoo bartilmaameedsaday sida uu yiri gobollo kala duwan oo Yemen sida gobolka Sanca Xudayda Tacis Bayda Xujja iyo gobolka la yiraahdo Sacda haddaba dhanka kale nin ka tirsan xafiiska siyaasadda jamaacada ansaarullaahi xuutiyiinta oo lagu magacaabo Maxamed al-Bakhiti ayaa isaguna waxa uu sheegay inay weeraradaas u dhaceen sidoo kalena waxa uu sheegay inay sii wadi doonaan dadaalka ay ku bixinayaan in shacabka reer Gaza dhibaatada laga dulqaado waata marka nimankii xuutiyiinta marka waxay leeyihiin wax kasta ha sameeyeen ma naga hor istaagi karo macalinka weyn iyo xirtiisa iyo ingiriis iyo waxa kan inaynu hawsha qabanayno hawsha aan qabanayno waxay leeyihiin waxaanu u qabanaynaa Gaza liajligeed Gaza dhibaatada laga joojiyo duqaynta laga joojiyo ciidanka Israa'iil dadka faraha ka qaadeen soo ma diidin annaguna Israa'iil markabkeeda mid Mareykan leeyahay mid Ingiriis leeyahay oo dekadaheeda u socda halkan ma mari karaan marka weerar kasta haday qaadaan wax ay naga cunayaan ma wadadan waa noo xalantaas isbaarada waa noo taalayli Mareykankuna waxay leeyihiin nimankan mar walba nagta ku haynayna waa idbinayna maartay waxa ay wadaan inay joojiyaan waayo nimankan waxay leeyihiin waxay naga qaadayaan male inta badan weerarada ay soo qaadaan waxay yiraahdeen meelo cidla iska weeraraan marka Mareykankuna waxay leeyihiin alaab diyaarsaneeda weerarnay gantaalo ridis kaliya ay u dhiman tahay iyo diyaarada drone in la soo diro kaliya u dhiman tahay wixii oo dhan ayaanu marka halka ku weerarnay leeyihiin haddaba wararkii marka duqeymaha iyo wixii xalay dhacay inta ayaynu kaga gudbaynaa qodobka kale ee barnaamijka aynu kaga hadlayno waxa uu yahay iyadoo ay noo soo socdaan qodobo kale oo aad u xiiso badan waxaanu galaynaa wadamo ka tirsan Yurub sida London iyo Berlin iyo meelo kale oo Yurub ka tirsan ayaa waxa ka dhacay mudaharaadyo shalay iyo maantay macnaha maalmaha fasaxa waa sabtida iyo axadda dalalka lama shaqeeyo weekend ee leedahay waa waqtiga ay dadku nasanayaan marka mudaharaadyadaas gilgilay gaar ahaan magaalada London kumanaan dad ah isku soo baxay dadka qaar waxay ku tilmaameen 200 oo kun oo qof dadka badan iyadoo xilli qaboobaha lagu jiro jawiga aanu wanaagsanayn qofku wiigii oo dhan ama toddobaadkii oo dhan u shaqaynayay ay tahay labadan maalmood inuu nasto ayay soo baxeen dadka soo baxay waxa isugu jiraan dadka noocyadooda kala duwan cadaanka wadanka u dhashay dadka ajaanibka ah dadka muslimka ah waxa soo dhan marka waxa soo qaban qaabinaya jamaacad ama kooxo kala duwan oo u ololeeya taageerada shacabka Falastiin iyo dadkan maaragtay xuquuqda aadanaha iyo waxa kan ayaa isku soo baxa haddaba marka sawirada marka sida ka arkaysaan waa dadkii oo kumanaan ah oo isku soo baxay gaar ahaan magaalada London oo maartay socdaalkoodu waxay ku dhameysteen ay ku soo gabagabeynayaan xarunta dawladda ay degan tahay oo ra'iisul wasaaraha halka uu ku shaqeeyo waxayna codsanayaan in degdeg xabadda loo joojiyo haddaba warbixin ayaa telefishinka Al Jazeera wuxuu ka qoray arintan wuxuuna leeyahay magaalada London waxa ka dhacaya maantay mudaharaad aad u ballaaran oo marka ay ka soo qaban qaabiyeen jamaacad ama kooxo maaragtay ka soo horjeeda arinta xasuuqa ka soconaya Gaza haddaba mudaharaadka waxa leeyahay waxa ay ka dhacayaan wadooyinka caasimadda waxaana dadka ay markaa ku soo gabagabeynayaan mudaharaadkooda xarunta dawladdu ay degan tahay ee magaalada London
halka looga arrimiyo oo ay xukuumaddu ku shiraan oo ra'iisul wasaaruhu joogo halkaas ayaa lagu soo gabagabeynayaa mudaharaadka haddaba dadka mudaharaadka abaabulayay ayaa qaarkood waxay la hadleen warbaahinta waxayna eedeeyeen booliiska caasimadda waxay sheegeen booliiska in mararka qaar dadka uu cabsi gelinayay oo mudaharaadka sameynaya oo ciriiri ay dareemayeen iyo cabsi gelin laakiin dadku way ka go'oneyd inay markaa u hiiliyaan shacabka Falastiin dowladooduna waxay ka codsadeen inay joojiso taageerada Israa'iil ay siiso isla markaana ay ka shaqeyso sidii dadkaasi xabadda looga joojin lahaa xabad joojin loo heli lahaa haddaba mudaharaadyadu meelo kala duwan ay ka dhaceen waxaa ka London ku soo xigay oo aad u ballaaran ka dhacay Yurub Berlin caasimadda Jarmalka oo kale maanta ilaa shalay mudaharaadya marka ka socda Yurub marka waxa leeyahay mudaharaadyadani waxay gilgilayaan dawlado waaweyn sida dawladda waddankan Ingiriiska oo kale mudaharaaadyadan dhacayay inay ilgooniya ku eegto macno weyn ugu fadhisaan leeyahay sababtoo doorashadii wixii soo dhow sanadkan dhici doona qofkan mudaharaadayay codkiisu hadhow kugula diranayaa waxa uu maanta mudaharaadka kugu weydiistay haddaad diido berito de wuxuu sameynayaa codkaasu kugula diranayaa marka dawladdu aad bay marka ay arintan uga walwalsan tahay laftirkeedu waxaa la aaminsan yahay 200,000 oo qof oo isku soo baxday iyadoo jawigu sidaa yahay oo qabow iyo dhibaato ay jirto inta la qabta fikradda oo soo bixi waayay ama guryahooda jooga oo dadkan ku fakara meeqay noqon karaan waa tiro badan yihiin marka dadkaas oo dhan doorashada markii la gaaro de waa luminaysaa marka dawladdu hawsha marka iyaduna aad bay uga walwalsan tahay la leeyahay marka hawlahaas marka Yurub ka socda maanta oo lagu taageerayo shacabka Falastiin waa tahay markan waxaan u gudbaynaa dhanka iyo Gaza ayaan u gudbaynaa Gaza waxa ka socda dagaal ka socda meel walba xabadu way ka socotaa duqeymuhu way socdaan majazara ama xasuuq cusub la soo sheegay maanta meelo kamida inay ka geysteen ciidanka Israa'iil oo ay duqeeyeen dad rayida haddaba dhammaan arrimahaas oo dhan iyadoo ay jiraan ayaa dhanka kale shacabka Israa'iiliyiinta waxa ay ka doodayaan miidiyahooda ama telefishinadooda dood kulula dhexmareys shacabka Falastiin baarkii Israa'iiliyiinta arrimaha ay ka doodayaan dhowr arrimood ayaa marka ugu muhiimsan la leeyahay oo doodoodu ay tahay haddaba marka Al Jazeera waxay leedahay suxufiyiinta iyo dadka wax taxliiliya ee falanqeeya arrimaha siyaasadda waxay aad uga hadlayaan iyo warbaahinta Israa'iil arrimaha ku saabsan cadaadiska Mareykanka uu saarayo Israa'iil inay aqbasho heshiis in laga gaaro arinta xabad joojinta si maxaabiista la isku weydaarsado dhanka kale waxa ay dooda maartay aad u kulul ay dhexmaraysaa dad siyaasiyiina arinta ku saabsan markii Ingiriiska uu si cad u sheegay iyo Mareykankuba inay isu diyaarinayaan inay ictiraafaan dawlad Falastiin ay leedahay iyadoo hataa Israa'iil la weydiin arintaas marka waxa leeyahay dooda aad ay u kulushahay dadku way kala qaybsan yihiin qaar waxay leeyihiin war ma dhici karto inay Falastiin dawlad yeelatay leeyihiin waxay ku macangagin waay waxay la jiraan dhanka Netanyahu iyo ragiisa waay qaarna waxay leeyihiin war dadkan anaga maxaa ula dirireynaa dhulkoodii Soomaha dawlad soo looma sameeyay hal loo sameeyo yaa akhay aan nabad anagana ku noolaan leeyihiin marka waxa leeyahay awal inta ka soo horjeeda fikradda in dawlad Falastiin ay yeelato oo ka barbar dhalata Israa'iil aad u yareedaan le nisbo qaliil ah oo yar laakiin hadda nisbadii way soo badanaysaa inta dawlad in Falastiin loo dhisan rabta oo doodaha ka qayb galayso oo siyaasiyiin hore ahayd way badan yihiin waxa leeyahay war dadkan anaga meeqa sana isgaraaceen 75 sano nagta isku haynaa inta ka badan yaa akhay naga daaya dawladooda ha qaataan aan daris noqon adduunka oo dhan waa la wada nooli marka
dadkii marka waa soo badanayaan le marka fikradaas qabay sheeko kaloo marka cajiiba iyaduna doodaha ku jirtay maanta oo aad maaragtay Israa'iil dhexdeeda looga doodaya ninka wasiirka amniga gudaha ah waxa la Ben Gvir waa ninkaan horadii kugu sheegay koofiyada madaxa ku duubto oo koofiyada yar qaata oo wadaad yahuudeed macangaga waay ninkaas marka wuxuu wareysi siiyay journaalka la yiraahdo Wall Street Journal aada loo carooday marka dadkii siyaasiyiinta xataa oo waxa dhan way ka caroodeen ninka hadalkiisa marka inta kale asagu tahjiirinta dadkan in la haajiriyo iyo waxa kale fikradiisu way iska ahayd waa la ogaa laakiin wuxuu ku darsaday maanta waa dadka Gaza hal haajiriyo ninka oo dhihi jiray waay laakiin wuxuu ku darsaday ninka Biden la yiraahdo toos u weerar Biden wuxuu carqaladayna kulaha dagaalka aan Gaza ka wadno xabad joojin hal qaato kan hal sameeyo dagaalka culeyskiisa la joojiyo bambooyinka waaweyn yaa la tuurin waxaas uu leeyahay kulaha ma waxaas haddii Trump joogin ha yiri marka meesha waxa qadad keenay oo xanaaqa keenay oo Mareykanka ka xanaajiyay kulaha haddii Trump joogin ha waxa mablis weydiiyay waxa Gaza jooga saarabna ka yeelina waa ku galgalanahay macnaha Biden ka intaasoo huba u geeyay oo intaas garab taagan oo golaha ammaanka veto la daba taagan oo meel walba difaacaya Israa'iil ay waxay leeyihiin waaba everywhere kan Trump aan oo ficnaalayeen Trump hadduu joogi lahaa waa ku luqluqalahay waxa rabnaa ka sameyn lahay markaas waxa la yiri siyaasiyiintii waaweyneed qaar xataa dawladda ku jira oo wasiir ah ayaa aad u carooday waxay yiraahdeen ninka siyaasad arrimo dibadeed wuxuu ka yaqaan lama arko Netanyahu iyo dawladdiisu waa wax khariban dadkii oo dhan ku kacsan wixii bro ahaa dhanka macalinka weyn la jiray Mareykanka iyo xulafadiisa ahaa oo dhan nagtay ku hayaan waa la garaacaya ninkan social media meel kasta warwara nin waalana wasiir nooga dhigteena la leeyahay marka hawshaas iyaduna halka ka socota waa tahay marka qodob kale oo muhiim ah ayaan ka hadlaynaa oo nin mas'uul ahaa oo maaragtay Israa'iili ahaa oo ka hadlay waxay la tahay isagu xaaladdu sida ay tahay haddaba mas'uul ka tirsan nin madax ka ahaan jiray hay'adda la yiraahdo Mossad ee Israa'iil hay'adda Mossad Israa'iil ayuu madax ka ahaan jiray ninkan waxa la leeyahay wuxuu ahaa nin khabiira waayo araga wuxuu fakarkiisa ka dhiibanayaa marka sida dagaalka socda hadda uu macna ugu fadhiyo iyo Israa'iil dhibaatada gaartay sida ay uga soo kaban karto haddaba telefishinka Al Jazeera ayaa warbixin wuxuu ka qoray ninkan madaxda ka aan jiray hay'adda sirdoonka Mossad waxay leedahay ninkii madaxda ka ahaa hay'adda Mossad ee Israa'iil waxa uu sheegay in ay 5 sano u baahan tahay Israa'iil inay dib u soo laabato oo ay caafimaado dhibaatada ay kala kulantay dagaalka Gaza dartii haddaba ninkan oo madax ka aan jiray hay'adda sirdoonka arrimaha dibadda ee Israa'iil ee Mossad la yiraahdo UC Cohen ayaa la yiraahdaa wuxuu sheegay in Israa'iil ay 5 sanadood ku qaadanayso inay ka soo kabato dhibaatada ka soo gaartay waxa ka dhacaya Gaza hay'adda wararka u faafisa Israa'iil ayaa waxay soo xiganaysaa ninkan la yiraahdo Cohen waxaana uu sheegay in Israa'iil ay markaa ay dhibaato kala kulmayso dagaalkan sii socda wuxuuna sheegay in loo baahan yahay wax kasta in lagu bixiyo sidii dadka maxaabiista ah loo sii dayn lahaa marka ninkan waa nin madaxa isagana hay'adda sirdoonka ee Mossadka ee khatarta ah Israa'iil ayuu soo maamuli jiray muddo dheer marka wuxuu leeyahay 5 sano nagu qaadanay in caafimaadno macnahan dhibaatada loo geystay nimankan jabka ku dhacay taangiyada laga burburiyay ciidanka curyaamay kuwa waashay wixii oo dhan uu qiimeeyay wuxuu yiri 5 sano qaadanaysa inaan soo caafimaadno dagaalkan hadda hadii la joojiyo 5 sano kadib caafimaadayna askar cusub in la qoro hub cusub la keeno hawshi ma dhawole marka meeshan waa ku naafoonu leeyahay meeshan dagaalkan waa ku baabaanay marka wax kasta ha qaadatee dadkii la haystay sidii loo soo dayn lahaa waa in laga shaqeeyo leeyahay isaguna waa aragtidiisa maalmo ka horna waxaan idin soo daayay nin kale oo madax ka ahaan jiray hay'adda la yiraahdo Shabak la yiraahdo oo gudaha sirdoonka gudaha Israa'iil qaabilsan oo madax ka ahaan jiray isaguna oo arinta ka hadlay
haddaba qodobka ugu xiisaha badan barnaamijka ayaanu eegaynaa. waxaa la leeyahay maraykankii cabsi ayaa ka jirta doorashada dhici doonta 2024 dabayaaqada sanadkan ee madaxweynenimada ayaa cabsi soo food saartay. warar sir ahaa la helaa la leeyahay oo muujinaya in maraykanku dagaal dibadda ah uu kusoo wajahan yahay iyo weliba gudaha oo fawdo iyo dhibaato iyo laga baqayo iyo maaragtay dhibaato inay ka dhacdo oo qoryo la isu qaato oo nagta la iska dhigo. marka sidee wax u jiraan? haddaba telefishinka la yiraahdo Al Arabiya ayaa wuxuu leeyahay warbixin sir ah ayaa waxay daboolka ka qaadaysaa in cabsi fara badan oo gudaha iyo mid dibadda uga imaanaysa maraykanka ay jirto doorashooyinka soo socda ee maraykanka ka dhici doona. waa sanadkan dhammaadkiisa doorashooyinka dhici doona. marka waxaa la leeyahay dibadda iyo gudahaba waa laga baqayaa. marka arrinta dibadda maxaa laga baqayaa? marka taqriirka ama warbixintu waxay leedahay waxaa laga baqayaa weeraro sebrani la yiraahdo oo dibadda in lagu soo qaado. sebraniga waa electroniga in lasoo weeraro kombiyuutarada waaweyn ee wadanka loo dhaco, meelaha nuclearka yaalo iyo waxa habeynaya lasoo weeraro, meelaha doorashooyinka la galo. marka waxaana looga baqayaa la leeyahay Chinese-ka iyo Ruushka inay markaa howlaha fulin doonaan oo markaa iyadoo sidoo kale lasii raacinayo kuuriyada waqooyi iyaduna inay qayb ka noqon karto oo macnaha dowladaha cadaawadu ay kala dhaxayso maraykanka ayaa laga baqayaa in hawsha ay markaa dhacdo. weliba marka waxay u fududaanaysaa leeyahay iyagoo ka faa'iidaysanaya qalalaase gudaha laga baqayo isagana. haddii Trump iyo ninkan hadda Biden ay isku soo baxaan oo sida la filayo labadoodu tartanka uu noqdo, waxaa dhici doontaa la leeyahay qalalaase gudaha ah oo tii hore wixii dhacay waa la ogaa ay ku kala badiyeen inta yarta ahayd iyo taageerayaasha Trump uu haysto iyo siday u hubaysan yihiin iyo waxa dhan iyo sida la isu diidan yahay. marka waxaa leeyahay iyagoo ka faa'iidaysanaya qalalaasahaas ayaa weerarka dibadda ahna iman doona, maraykanna dam u dhihi doona ay leeyihiin. marka cabsidaasaa jirta wadanka maraykanka hay-adihiisa iyo wixii oo dhan hadda waxaa laga shaqaynayaa sidii looga gaashaaman lahaa labada weerar ee soo socda, midka qalalaasahan gudaha ah iyo midka dibadda ah. marka sirtaasaa marka hadda la kashifay oo maraykanka cabsida haysa ayaa la soo saaray bannaanka oo bannaanka la keenay. haddaba barnaamijkeenii ugu horreeyey maanta oo axada intaa ayaan kusoo gabagabaynayaa. waxaadna ka dhageysanayseen macluumaad aad u tiro badan oo aan idiin soo ururiyey oo ahaa wararka ugu waaweyn ee iminka warbaahinta dunidu ay ka hadlayaan. soo qora comments aragti iyo fakar wixii aad ka qabto barnaamijka ama qodobka aad is leedahay fakar waad ka dhiiban kartaa aragtidaada iyo sida aad u aragto. ha iloobin inaad like gareyso oo share gareyso barnaamijka si mar walba barnaamijyadeena ay u gaaraan in badan oo u baahan. haddaad nagu cusub tahay subscribe saar youtube-ka, haddaad ku cusub tahay facebook-ana follow garay. inta aan mar kale barnaamijka lamida ku kulmayno iyo saacadaha soo socda haddii alla idmo. nabadgelyo.